waxaan ahay taliyaha qaybta 43aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. kaliya waxaan u imaaday Kamboni maadaama taliyaha qaybta ahay dhulka ay qaybtu ay shaqadeedu ay tahay Jubaland State in wixii dhacay muxuu ku dhacay ma sax buu ahaa ma khalad buu ahaa ka hadli maayo laano ciidan baan ahay ciidankana siyaasadda waa ka xaraan kaliya dhalinyaradaas Soomaaliyeed ee ka tirsanaa ciidan ka tirsan ilaa hadda waa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee dagaalkii meeshan ku dhacay waxa weeye lagu qabtay in aan la wareego xaafadahoodii iyo guryahoodiina aan gaarsiiyo si nabad ah intaa kaliya aan u imaaday wixii kale oo dhan wax ii yaala maaha aniga waan ku faraxsanahay marka inaan idin imaado oo idin hor imaado idinkoo bad qaba xaaladdu kolba meel bay taagan tahay inta dhimatay Allah u naxariisto inta dhaawacantayna ilaahay ha u boodhayo caafimaad ha siiyo bidnillaahi alkariim caawa waxaa ku hooyan doontiin xeriyihii la idinka soo qaaday muhiimadeeduna intaa kaliya waa siyaasad baana ka hadlaynin maxaa saxa maxaa khaldan baana ka hadlaynin muhiimaddu waxay tahay oon isu soo xilqaamay anigoo weliba aanan ogolaansho buuxa haysanin inaan anoo Kismaayo joogo aad halkan idinkana aad bacaad jiftaan oo waxaa weeye aad ku dhibaatootaan oo biyo ku weydaan oo nololeed ku weydaan intaa kaliya aan u imaaday waana tagaysaan bidnillaahi alkariim diyaaraddu way soo degaysaa falaydkii horeeya waa kacay 33 buu qaaday idinkana 50 baa tihiin dhalinyaro Soomaaliyeed baa tihiin waddankan waddankiinni waaye meeshan aan joognana waa waddankii la idinku talagalay waaye khaladkaa dhacayna kolay mas-uuliyiin baa iskale ciidankaana ma laha waxaa weeye intii u talinaysay ee lasoo dirayna ma laha muhiimaddeedu keliya barka waxaa weeye inaan idinla wareego goobihii laydinka soo qaadayna diyaaraddu idin geyso meeshii laydinka soo qaaday ee diyaaraddu idin geyso muhiimadda intaa waaye aad baana u mahadsantihiin inta joogtana waa dhammaystirayna waa qaadaynaa wixii meelahan ku dhuumanayana oo cabsi hayso ama si kaleeto u maqanna waxaan leeyahay anigoo taliyihii qaybtaha jooga imaada adigana waan kula wareegaynaa waana ku qaadaynaa aad baa mahadsantihiin asalaamu calaykum.